السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا channel كيغا سميرة. ما أنت ماشي waxaa soo marista badan aad ka maqnaa horta I'm really sorry and aad uga xumahay and waan ogahay markaad muuqayga artiin wax kale ay filaysiin but wax kale ma idin wadi waxaa idin wadaa kaliya jawaabtii Rayaan Bajaaj iyo Abbas and horta Soomaalida dadka Soomaalida been sheegan laakiin been ma ku mahmaahan hubsimaha la siista idinkeedan wax ogeyna inaad iskala carartiin ma wanaagsano maxay hayday waxaan qorshahan ama waxaan dhex socdo YouTube-ka ama TikTok-ka dhex socdo waa wax ay ayaga family ahaantooda ay soo go'aansadeen ay soo gaadheen inay wax ka helaan ay ku tashteen okay aniga hadal badan ma jeceli kasadaan hadal badan jecelahay aniga YouTube-kayga inta soo fariisto aan ka hadli lahaa laakiin aniga waxaan leeygu soo taataagareynayo ama dumarka qaar ay igu caynayaan ama ragga qaar ay igu soo aflagaadeynayaan waxaas dhan hadaa idin dhaho familkaas dhanba aaba ka qorshaheeda soo dego soo baaran dego maxaa igu jawaabi doontiin waxna waa yaabi doontiin waxaan isdii doontiin maxaad ku haysteen okay waaya runta waxay tahay Rayaan iyo familkeeda in ay go'aanka soo gaadheen ay jeclaysteen anina pranking aan la jilo anigana qof wada saxaabtihiin oo wax kasta isla sheekistiin haduu wax ka codsado codsigiisa waa loo fuliyaa sax yes codsigoodii waa u fulinayay waxay jeclaysteen oo sameeyay waan ogahay idinka sad ku fikiraysin ani xataa waan ku fikirayaa laakiin ani ma jeclin xataa inaan ka soo hadlaan jeclaan in idinku daayo balse xitaa walaalkeyga taraaga saaran wadada saaran aayta loo col raadina la dhahayo walaasha ninkeena ka qaadatay aniga family isku buuxa markaan runba xataa hadii xataa runta hadda idin ka dhigi lahayd balse ani aqliyadayda family isku buuxa inaan taa dhaxgalo aan dumiyo taas macnaheedu waxay la tahay masaajid disan ayaan dumiyay aniga Rayaan maalinkii ay qorshahan soo degtay ay jeclaysatay inay dadka prank ku sameeyso maalinkaas Abbas ugu horeysay barashadiisa waana April 2 ay ahayd ayada xanuunsatay isbitaal la geeyay fiidooga markaa may soo galin maalmo dhaweyd bay soo gashatay fiidooga maalmihii dhaweydna weydinka saan xun isku dhex socday maxay ahaydey marka hadalii dhamaantiis ana xataa waxa idin sheegay ma garanayo sababtoo ah waxaan waxba ahayn ba wax weyn ka dhigoosiin balse runta waxay tahay aniga familkayga hadii laga soo gudbo aniga kulli wax ma idahayaan oo way og yihiin aniga waxaas inaan ku saqajaamaynin taska gudub ilaa sheekada xayba gaaraysaa inay aniga ninkayga ay aad sheekada oo isla wada dhaxwareegtin saasay tahay 100% asaga iyo familkaygaba aniga waan ka adkahay waxaana inay iga suurtoomi way ogyihiin dadka waxaa la hadlayaa social media-ha idinku waan ogahay waaga bari waxa uu soo kacdiin heblaaya maxay sameysay hebel muxuu sameeyay maxaa ka hadashiin laakiinse kale fiidooga kaliya ma arkaysiin Rayaan iyo Abbas isla fadhiyeen waa arki doontiin sheekadan wax ma ka jiraan prank waaye familkaasna ayaana soo gaaray prankiga inay sameeyaan wayna ila yimaadeen kulay anigana pranking waan la sameeyay Abbasna walaalkeyga waaye nimankiina qaar waxay noqotay social media isla dhex wareegay sameeysaas waaye aniga baraada saas meeyay moodisina meey oday weyn oo waxaan arkay meel ii soo fariistay balse sheekadan waan prank anigana Abbas ma rabi rag haduu ka soo haraan rabin rag kaliya dooduu ka saaran yahay rabin Rayaan iyo ninkeedana waa dad isqaba weyn isla joogaan codkaana maalinka waxa la duubayay saan ayagu isku ag fadhiyo ana fiido koola ku jiray taleefanka la codka duubayay saan la isku wada ag fadhiyay marka Rayaan markii fiidaasha qaar ay sameynayso waa aragtay reaction-keeda siday tahay so do you guys think ma waxa malaysa sameeyay ninka saacad ka qaadan karto maya labada qof is jecel ilaahay isku daayaan leenahay laakiin dee wax yar oo leerahaynay waa prankna way dhacdaa idinka dhan oo soo yaacaysiin waxaad leedihiin kan oo midan sameeya kan ka qaadaysaa idinka anaga sidii kala social media nafta noogu keenteen because anaga waxaana ahayn baa naga sameeysiin sawiraanteeda qaadiin waxa ku sameeysiin waxa kala qaadiin fiidaasheeda qaadiin si xuna uga falcin saasay tahay xataa weligii maan isku dinta meel soo fariisto inaan idin dhaho waa iga khaldantiin ama wax khaldan ay igu sameynaysiin because hadaa social media ku jirtid ama barta la dhaho TikTok aad isticmaashid you can know sumay ahaanteeda qof kale hadii laga yimaado sumay ahaanteeda waxa like
most of the times laygu sameeyo waad aragteen saasay tahay ma ka hadlo sawirkayga la qaadaa wixii la rabaa lagu sameeyaa fiidaashida la qaadaa sidii la rabaa reaction looga bixiyaa maxay hayday like anything wax kastoo iga soo baxa waa qaadaa waa sii fasirtay aan ka aamuso taas macnaheedu maahan cabsi aan idinka ka waabanahay balse waxay tahay inaaba kala jecleynbo oo I don't care iska ahay aniga waxay tahay wallahi prank ma ogeyn markii la bilaabayay like waana maqnaa maalmahan markastana waan u dhawaan u sameeyo laakiin markaan video aan ba arkay oo leeyihiin oo Abbas iyo Sumaya like right away aan waan ogaa inay been tahay waxa prank meesha laga watay oo idinka wala idinka waalay idinkiina wala idinka waalay marka prankiga ana la rabay in la igu sameeyo balse fashil ay ka noqotay waxay jeclaysteen inay dadka ku sameeyaan marka okay aniga marka kulay hadalii dhamaantii waxba hadalka badan anima jeceli laakiin waxaan prank waaye waxna ma ka jiro ani Abbas Maxamed naga dhaxeeyo anigana ay igu dirina familkeyga ma baandeen dadkana waxa soo dhax wareegsan iska joojiya saaka ugu dambeysay waxyaabo qaarnimo waaweyn oo meel soo fadhiisanay ka hadlaaya ayaan niidida waxa soo gashay bal nimanka waaweyn markay maqlaan waxaan waa prank waxba ma ka jiraan bal maxay ku hadli doonaan after ballna waa daa ma fahanteen so yes bye guys welcome to my channel and maxay hayday in badan aan maqnaa kulli soo jeclaa hadda waa soo laaban doonaa and thank you guys so much waxaana prank waay walaalayaal oo igala taga Abbas nima rabid ma igu qasbaysiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواء channel كيغا سميرة maanta meesha waxaa soo fariistax badan aad ka maqnaa horta I'm really sorry and aad uga xumahay waan ogahay markaad muuqayga artiin wax kale ay filaysiin but wax kale ma idin wadi waxaa idin wadaa kaliya jawaabtii Rayaan Bajaaj iyo Abbas horta Soomaalida dadka Soomaalida been sheegan laakiin been ma ku mahmaahan hubsimaha la siistaa idinkeedan wax ogeyna inaad iskala carartiin ma wanaagsano maxay hayday waxaan qorshahan ama waxaan dhex socdo YouTube-ka ama TikTok dhex socdo waa wax ay ayaga famil ahaantooda ay soo go'aansadeen ay soo gaadheen inay wax ka helaan ay ku tashteen okay aniga hadal badan ma jeceli kasadaan hadal badan jecelahay aniga YouTube-kayga inta soo fariisto aan ka hadli lahaa laakiin aniga waxaan laygu soo taataagareynayo ama dumarka qaar ay igu caynayaan ama ragga qaar ay igu soo aflagaadeynayaan waxaas dhan hadaa idin dhaho familkaas dhanba aaba ka qorshaheeda soo dega soo baaran dega maxaa igu jawaabi doontiin waxna waa yaabi doontiin waxaana isdii doontiin maxaad ku haysteen okay waaye runtaa waxay tahay Rayaan iyo familkeeda in ay go'aanka soo gaadheen ay jeclaysteen anina pranking aan la jilo anigana qof wada saxaabtihiin oo wax kasta isla sheekistiin haduu wax ka codsado codsigiisa waa loo fuliyaa sax yes codsigoodii waa u fulinayay waxay jeclaysteen oo sameeyay waan ogahay idinka sad ku fikiraysin ani xataa waan ku fikirayaa laakiin ani ma jeclin xataa inaan ka soo laxan jeclaan aan idinku daayo balse xitaa walaalkeyga taraaga saaran wadada saaran aayta loo col raadina la dhahay walaasha ninkeena ka qaadatay aniga family isku buuxa markaan runba xataa hadii xataa runta hadda idin ka dhigi lahayd balse ani aqliyadayda family isku buuxa inaan taa dhaxgalo aan dumiyo taas macnaheedu waxay la tahay masaajid dhisan ayaan dumiyay aniga Rayaan maalinkii ay qorshahan soo degtay ay jeclaysatay inay dadka prank ku sameeyso maalinkaas Abbas ugu horeysay barashadiisa waana April 2 ay ahayd ayada xanuunsatay isbitaal la geeyay fiidooga markaa may soo galin maalmo dhaweyd bay soo gashatay fiidooga maalmihii dhaweydna weydinka saan xun iskula dhex socday maxay ahayd marka hadalii dhamaantiis ana xataa waxa idin sheegay ma garanayo sababtoo ah waxaan waxba ahayn ba wax weyn ka dhigoosiin balse runta waxay tahay aniga familkayga hadii laga soo gudbo aniga kulli wax ma idhahayaan oo way og yihiin aniga waxaas inaan ku saqajaamaynin taas ka gudub ilaa sheekada xayba gaaraysaa inay aniga ninkeyga ay aad sheekada oo isla wada dhaxwareegtin saasay tahay 100% asaga iyo familkeygaba aniga waan ka adkahay waxaana inaan iga suurtoomin way ogyihiin
dadka waxaa la hadlayaa social mediaha idinku waan ogahay waaga bari waxa uu soo kacdiin heblaaya maxay sameysay hebel muxuu sameeyay maxaa ka hadashiin laakiinse kulli fiidooga kaliya ma arkaysiin rayaan iyo cabaas isla fadhiyeen waa arki doontiin sheekadan wax ma ka jiraan prank waaye familkaasna ayaana soo gaaray prankiga inay sameeyaan wayna ila yimaadeen kulli anigana prankiga waan la sameeyay cabaasna walaalkayga waaye nimankiina qaar waxay noqotay social media isla dhex wareegay sumay saas waaye aniga baraada saas meeyisa ay moodaysin meey oday weyn oo waxaan arkay meel ii soo fariistay balse sheekadan waan prank anigana cabaas ma rabi rag haduu kasoo hadhaan rabin rag keliga haduu adduunka saaran yahaan rabin rayaan iyo ninkeedana waa dad isqaba weyn isla joogaan codkaana maalinka waxaa la duubayay saan ayaga isku ag fadhiya ana video call ku jiray taleefon kala codka duubayay saana la isku wada ag fadhiyay marka rayaan markii fiidiyoasha qaar ay sameynayso waa aragtay reactionkeeda siday tahay so do you guys think ma waxa umalaysa Sumayra ninka saacad ka qaadan karto maya labada qof is jecel ilaahay isku daayaan leenahay laakiin dee wax yar oo leerahaynay waa breakna way dhacdaa idinka dhan waa soo yaacaysiin waxaad leedihiin kan oo midan Sumayra kan ka qaadaysaa idinka anaga sidii kala social media nafta noogu keenteen because anaga waxaana ahayn baa naga sameeysiin sawiraanteeda qaadiin waxa ku sameeysiin waxa kale oo qaadiin fiidiyoasheeda qaadiin si xuna uga falcin saasay tahay حتى ولقي ما نسكت أنت ميل صفر استوينا إذن ده وأي خلدتنا ما خلدنا أيوة سمينيسين because ده social media كتير أما برتل ده تيك تاجد استعماشيد you can know سماي أهانتي ده قف كنا دي لقي معه سماي أهانتي ده وح like most of the times لا يقول سماي هذا ركتين ساسيته ما كهلا صور كي على قاعدة وحيل الربا لقوا سمايا فيديوش ده القاعدة سيدي الربا reaction لقوا بحيا and حي هيدا like anything wax kasto iga soo baxa way qaada waa si fasirti aan ka aamusta tasmacnay maahan cabsi ay idinka ka waabanaay bas waxay tahay inaaba kala jecleyn bo oh I don't care iskahay aniga waxay tahay wallahi prank ma ogeyn markii la bilaabay like waana maqnaa maalmahan markasta aan u dhawaano Sumayo laakiin markaan video aan baarkay oo leeyihiin oo Abbas iyo Sumayo like right away anu ogaa inay been tahay waxa prank meesha laga watay oo idinka idinka waalay idinkiina wala idinka waala marka prankiga ana la rabay in la igu sameeyo bas fashil ay ka noqotay waxay jeclaysteen in dadka ku sameeyaan marka okay aniga marka kale hadalii dhamaantii waxba hadalka badan ani ma jeclay laakiin waxaan prank waaye waxna ma ka jiro ani Abbas Maxamed naga dhaxeeyo anigana ay igu dirina familkeyga ma fahanteen dadkana waxa soo dhax wareegaysan iska joojiya saaka ugu dambeysay waxyaabo qaarnimo waaweyn oo meel soo fadhiisanay ka hadlaaya ayaa niidida waxa soo gashay bal nimanka waaweyn markay maqlaan waxaan waa prank waxba ma ka jiraan bal maxay ku hadli doonaan after ballna waa daa ma fahanteen so yes bye guys welcome to my channel and maxay hayday in badan aan maqnaa kulli sajacla hadda waa soo laaban doonaa and thank you guys so much waxaana prank waay walaalayaal oo igala taga Abbasna ma rabid ma igu qasbaysiin lama